xisbiyo badan ayaa imika ku doodaya in xijaabka laga qaado dumarka oo dumar aan xijaabnayn ay shaqo tagi karin xisbiyo badan ayaa ku doodaya in iskuulada laga mamnuuco hablaha yar xijaabka xiran marka xisbigana waa xisbiga ku dooda inta badan qof walba in diintiisa lagu nabadgeliyo marka aniga aad bay igu muhiim tahay in reerkayga iyo caruurtayda lagu nabadgeliyo diintooda saas daraadeed waxaan odhan lahaa inaad xisbigan doorataa waxay damaanad u tahay diintaada iyo joogitaankaaga arrimahaasoo dhan oo u muhiima hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxa u fiican inay u codayaan xisbiga SC website-ka war cusub media ayaa waxa hortaagan Xuseen Ciid Yuusuf oo ah injineer bartay telecommunication-ka ahna rugcada ku jiray xisbiga SC 7 sano Xuseen waxaan ka wareysanaynaa xisbiyada maaragtay Soomaalida ay siinayaan codkooda iyo siyaasadda Norway doorashada hadda socota Xuseen bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan ku bilaabayaa magaca Ilaahay aad iyo aad baan u salaamayaa daawadayaasha meel kasta joogaan waxa aad iyo aad u muhiim ah saad ka dhawaajisay in la codeeyo way haddaad codoon weydo wad caban doontaa waxa codeyn doona cid kale oo adiga joogitaankaaga diidan dalkan waxa jira siyaasaddu waxay kala baxdaa laba qaybood midig iyo dhex marka dhexdu iyagu waxay raacsan qaybna waxay raacsantahay midigta qaybna waxay raacsantahay bidixda marka haddii aad adigu codeyn weydo waxa codeyn doona dadka adiga ka soo horjeeda ee midigta fog iyo kuwa dhexda raacsan sida kuwa imika xukuumadda haysta aad ogtihiin qaraarada iyo maaragtay shuruucda ay soo saareen ay maaragtay jiritaankaagu halis geli doona marka aad iyo aad bay muhiim u tahay inaad codeyso way haddaad codeyso waxaad adiguna gaarantiisiinaysaa ama aad damaanad qaadaysaa inaad hesho xisbi damaanad qaaday inaad joogto in ilmaheenu xijaabka xidho in gabadheenu xijaab xidhato in masaajideenu sii jiraan laakiin haday badiyaan kuwa masaajida iyo xijaabka dumarkeena ka soo horjeeda ha ala calin hadhito hadaad codeyn weydo xisbigee ayaad ku talin lahayd in la doorto dabcan xisbiyada horta waxay wada shaqeynayaan sidan saan hore u soo sheegay midig iyo bidix marka xisbiyada bidixdu ee ka tirsan yihiin SB oo anigu aan ka tirsanahay iyo Arbeda Party iyo SB oo isaguna xisbiga maaragtay boodnerka ah oo dibadaha ka helay cod badan ka haysta ayaan ku talin lahaa in la codeeyo waxaan ku sii talin lahaa in loo codeeyo SC sababta aan u leeyahay in SC loogu codeeyana waxa weeyaan ka muslim ahaan ka Soomaali ahaan iyo ka soo galowti ahaanba saddexdaa shayba xisbigan wuxuu siinayaa garanti fiican in maaragtay qofku isagoo diintiisa haysta uu ka mid noqon karo mujtamacan in qofku isagoo maaragtay xijaabkiisa haysta uu dhigan karo iskuul uu shaqo tagi karo xisbiyo badan ayaa imika ku doodaya in xijaabka laga qaado dumarka oo dumar aan xijaabnayn ay shaqo tagi karin xisbiyo badan ayaa ku doodaya in iskuulada laga mamnuuco hablaha yar xijaabka xiran marka xisbigana waa xisbiga ku dooda inta badan qof walba in diintiisa lagu nabadgeliyo marka aniga aad bay igu muhiim tahay in reerkayga iyo caruurtayda lagu nabadgeliyo diintooda saas daraadeed waxaan odhan lahaa inaad xisbigan doorataa waxay damaanad u tahay diintaada iyo joogitaankaaga waxay kale damaanad u tahay in lala dagaalamo faqarka oo caruuro badan oo maaragtay Soomaaliya ayaa ku nool dawladda caawimada ay siiso caruuraha in caawimada la siinaayo in kor loogu qaado ayaa la doonayaa ayuu xisbigan ballan qaaday in caruuraha iskuulada laga hagaajiyo oo iskuulkiiba macallinkii uu haysto 15 arday oo quraata ee aanu ka badnaan macallinka klaaska koobaad iyo ilaa klaaska afraad uu macallinkuba haysto 15 arday oo qura oo iskuulada aanay ciriiri noqon macallinkuna uu sameeyo shaqadiisa si wanaagsan marka arrimahaas oo dhan oo u muhiima hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka ajnabiga iyo Norwayska caam ahaan inta dabaqada hoose ah waxa u fiican inay u codayaan xisbiga SC injineer Xuseen wax qaas ah oo SV u qabtay Soomaalida ma jiraan adoo soo gaabinay SV waxay u qabatay labadii sanadkan waxa dhacay arrimo badan oo aad u adkaa labada arrimood aad u adkaayay in soo waajay waxay qoxontigii badnaa ee soo galay berigii dhawaato waxay xisbiyadu u tartameen sidii ay u adkayn lahaayeen shuruucda dadka waxay u tartameen sidii ay dadka sharciga uga qaadi lahaayeen SB iyo MDG oo hal qof waxay hayeen xisbiga qura ee ka baxay ay ka baxeen xildhibaanadiisii baarlamanku ay ka baxeen ay diideen shuruucdii adkayd ee la soo jeediyay halka Arbeda Party uu ahaa xisbigii ugu horeeyay ee ogolaaday FRB shuruucdii adkayd ee soo jeedisay ee la saxeexday oo aan aad uga xumahay xisbiga ugu badan ee Soomaalidu u codeysay inuu ahaa Arbeda Party oo arintaana ay ku gafeen codkii maartay Soomaalidu siisay oo ay kaga baxeen maartay ballantii ay u qaadeen waxa kale oo muhiim ah
arintii baasaboorka Soomaalida iyo dadka kale ajnabiga ee UDA u soo diri jirtay waraaqaha xisbiga ku dagaalamay ee mahad caawiyay ee mahad garab joogsaday arintaana aad baan uga mahad celinayna mahad walaalkiin mahad oo shaqo fiican qabtay runtii qofku wuxuu qabtay waa loo qiraa ninka wiilkaasi shaqo fiican buu qabtay ilaahay ka duqaado maartay dhibaatada xisbigii la dagaalamay ee garab joogsaday waxay haayeen SV waxay haayeen Carrie Anderson iyo Heike Holmos waxay ilaa maanta u taagan yihiin in qof kasto ajnabiya ama qof kasto oo muwaadina caddaan ha noqdo ama madow ha noqdo ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo inay xuquuq siman yeeshaan marka adiga ma qofka xuquuq siman ku siinaya ayaa ku muhiima mise waxa ku muhiima qofka dadka kala xuquuqaya ee dadka caddaanka ana maartay siinaya cashuur dhimis iyo maartay aan baasaboorada la taaban karin laakiin adiga baasaboorkaaga laga qaadi karo carruurtaada la hatigi karo waxyaabahaas oo dhan marka waxyaas oo dhan ayaa u muhiima Soomaalida oo uu qabtay xisbigaas qof Soomaali ma ku jira xisbigaas oo hadda sharaxan oo la dooran karo ha walaalo waxa ku jirta walaasheen Maryan Xuseen baa ku jirta oo number 5 ku jirta magaceedu numberka 5aad ay ku jirta marka uu codeynayo wuxuu isku talaab marinaya halkaas يعني waxay ka dhigan tahay wuxuu dooranayaa Maryan Xuseen ayuu cod siyaada siinaya hadii uu halka Maryan waxay ka dhigan tahay Maryan uu ka saaraya marka waxaan rajaynaynaa dadku iska ilaaliyaan inay Maryan ka saaraan oo ay Maryan doortaan waayo Maryan waxay ku jirtaa wasiirka shanaad waxaana dhici karta inay soo gasho si dadban ay u soo gasho baarlamaanka waana markii uu horeysay qof Soomaali uu soo galo baarlamaanka wax Maryan u qabatay Soomaalida ma jiraan Maryan ha wata ka dagaalamaysa arrimahan oo dhan arrimaha baanka oo maartay kiisas badan aha hore ayay uga soo shaqeysay oo dad badan oo ka shaqeeyay ay kamid ahayd laakiin maanta iyadoo hadii ay sturtiga tagto ama ay biidelka ay ka tirsan tahay gaamal biidelna dad badan ayaa caawisa oo qof dhalinyaro oo dalka wax ku baratay dalkan ku kortay dhaqankan iyo ummadan sida u shaqeyso la qabsaday marka waxaan jeclaan lahaa in maartay dadka caynkaas oo kale la iska xaafadda u sharaxan tahay mise baarlamaanka xaafadda way ka tirsan tahay biidelka xaafadda way ka tirsan tahay doorashadii hore ayay ku soo gashay biidelka laakiin imika waxay u sharaxan tahay baarlamaanka wadanka ee Norway saasay kala duwan kaasna wuxuu ahaa injineer Xuseen Ciid Yuusuf oo kula taliyay Soomaalida inay codkooda dhiibtaan una codeeyaan qaas ahaan xisbiga SV waad mahadsantahay walaalo